وأصحابه ومن والاه وسلم تسليما أما بعد ولا ليال سيدا درامي سيخد بدين وحي كساب سني تفريج كروبات المسلمين وقضاء حوائجه تذك مسلمين تا oo dhibka haysta looga gurmado oo laga dul qaado dhibka haysta hadduu mid caam yahay iyo hadduu mid khaas yahayba way kamid ahayd hawshan imika aynu wadnay oo adan ummadda islaamka wada taala waxa kale oo jirta baahi baa jirta bulshada dhexdeeda haddii ay tahay miyiga iyo haday tahay magaalada labadaba waxaynu ku jirnaa kaliil iyo roobkii oo walidiin waxa soo dhow bishii ramadaan oo ayaamo koomani ay u ka dhiman yahay oo inoo ogsoonahay bulshadu baahi badan inay waqtiga hesho iyadoo waqtiga kulaylka ana ay ku beegan yihiin sida daraadeed qodobka aad baynu baraarujinaynaa qofkuna inaanu fudaysanin wixii uu heli karayo haday tahay dabada iyo haday tahay gudahaba waxa iskaashiga la yiraahdaana waxa weyn aliyadu alwaahidatu la tusafiq gacanta kali isma gacan qaado laakiin labada gacmood ayaa isxoojiya saxaabadu ridwaanullaahi calayhim asxaabtii nabi maxamed uu ku rabeeyay sida inay u gurmadaan ee caawiyaan bulshadooda baahan intooda mudanka ah ee madaxda oo asxaabta tusaale ay u ahaayeen arintaas asxaabta ridwaanullaahi calayhim waxyaabo dadka qaarkood laga yaabo inay ama ka khashaafaan ama ay fudaydsadaan ayay samayn jireen asxaabta waaweyn si dadka qaarkood ayaga ugu daydaan dhammaan iyagana naftooda ay ugu noqoto kibir jabin iyo inay tawaaducday hoos naftooda u dhigaan tusaalayaasha aynu soo qaadanayna waxaa ka mid ah Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu kaana yahlib lil hayy agnaamahum xaafada dumarka u baahan buu ariga u lisi jiray waa Abu Bakr Siddiq wasiirkii koobaad nabiga calayhi salaatu wasalaam laga yaabo dadka qaarkood inay la yaabaan ay dhaahdaan ma arigu nin lisay ariga waxa lagu yaqaanaa in dumarku lisaan inkastoo carabta rag u lisi jiray ariga falamma istukhlifa qalat jariyatun minhum al'ana la yahlubuha markuu madax noqdayba inaanay waxay tidhi arigiiba cid lisalamayo oo la isku haleynay Abu Bakr isaguna wuxuu leeyahay waxaan rajaynayaa shaqadaydii inaanan gabinan dadkii duruufaysnaa u sii wado oo sii caawiyo Umar ibn Khattab radiyallahu anhu isaguna hadiga ama wadada nabi maxamed iyo uu kaga dayanay saxaabiga Abu Bakr ayaa uu hayo kaana yataahad ba'd al-aramil fayasqi lahunna al-ma'a bil-layl dumarkan bila raga ee carmasha ee gaboobay ama waaweyn habeenkii buu isku day jiray inuu biyaha u soo dhaamiyo ilaa uu amal khayr isagoo dadka ka qarsanaya Talha ibn Ubaydillah Allah ka raali noqdo ayaa arkay isagoo habeenkii Umar guri sii galaya gurigii buu maalintii tagay bal waxa uu odaygan ama ka doonaya saxaabigan goobtan wuxuu gurigii kula kulmay islaan weyn oo daaweyn waa ajuzatan amya muqada islaan indhala oo fadhida oo yururto waxba qabsan karila wuxuu ninkan habeenkii ku yimaadaa muxuu qabtaa waxay ugu jawaabtay muddo dheer ba sidaas uu haayo kaana yataahaduni yatini bima yuslihuni wa yukhriju anni alada wixii danahayga ana uu keenan u baahanahay xashiishkana uu iga sii qaadaa uu iga tuura marka madaxuu ruuxay Talha ibn Ubaydillah waxa uu ma Umar baad gaaraysaa mise waxa raad racbad ku sameynaysa Abu Wail isaguna waxa uu ahaa dumarka ayuu habeenkii isaguna sidoo kale ku soo wareegi jiray fayashtari lahunna hawaijahunna wama yuslihun muraadkooda iyo wixii ay u baahan yihiin buu weydiinayaa dumarka aan rag lahayn ee aan cid xil qaada lahayn waxa oran jiray Hakim ibn Hizam asxaabtii nabi maxamed kamid ahaa sallallahu alayhi wasallam maalinta aanu cid uu wax siinayo ama cid uu taakuleeyo aanu helin waxa oran jiray ma asabtu walaysa bibabi saahibu haaja taasna waxaan u qaadanayaa wiil kol hadaanan maanta helin cid aan caawiyo inay tahay musiibo igu dhacday mar haddii camalkaygii hoos u dhacay macruufka la doonayo samafalka la doonayo inaynu qabano
وبرشدة جودهانية جارهان بينو قبلنا أنواع بولي والنوعية قفكنا وحيابها وكوها والجليو تنهي سكار كاكوان وكدريا ويدن تعام هدي أي تاي ديني هدي أي تاي دوية لبضبا قفكوان وقعنكو يا شاكالين بكلي أنواع المعروف وحكم إذا أقونت إن أدتك لها أقونت برت لباتوين كوجوين برشدة هيستوى حكم إذا جهلية واللي بدين تو ذاك الجاهلين وكان لو لقوا مدى أقونت وحلا ده صدق يستا أقونت أو في عن أقونتنا إيباي وبضتي كل كاقفوا إنه أقونتي سولي بديني قايب سيا برشدة سيا بلا شغل نقط وحكم إذا الإرشاد والاستشارة ضدك قار كود با أيسكجت عضتي أو بهان لا تليو وديني الدنيا بوحي دريم يعني كباهي لقلا تليو يدو لا توسينيو او لا تلماميو او وحي uu ku qaloocan yahay laga hakinayo laga joojinayo المستشار مؤتمن نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم wuxuu leeyahay qofka la tashaday waa la aaminay waxyaabaha waxay kamid tahay amaanada ku saaran ee aad gudanayso dad badan ba adduunkuba uga qaalisan inaad arinsiiso waxa kamid ah almaal xoolaha aynu bixinayno haddaynu meel caama ku bixinayno haddaynu cid khaas ah siinaynaba وأنا كنت لقى مالنتي واحد بحنيس بشي واحد بحنيس سنتك واحد بحنيس سدا قرآن كإلهي ونقول المامي هنوض بحنين هنوض قابسن إن دحدحاد وحاجة وهالنوضان لكن وحقر شيسان أو هبيسان وتكون لقى شو هالنقط إلهي نوح بلن قاضي إنه بدل بحنيه وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وحق الصواب بحسان أنه صواب بدل يا أبي الهوي ملايين وصادر الدعاء لتاجر إياها بار اللهم أعطي منفقا خلفا مركان ملقود دعينا يا وحول إلهه كوحبحية إلهه بدل سي بيتكلنا وها بارتما يا وحول إلهه كوحي سهيسته تلف سي أما يسجد إلى محولها كدل معروف كانوا بحنا ينوح كم إذا القوة أوده تذكر كود بايتال درر سدا أصحابته إنه كقصوا ورمين أو بهانين جديد كوحلاقو قاض أو بهانين اللي سجى إلا الطبالي صومالي ذي أنه واحد مدات كنافضة يباهيها كار كادت كله inaynaan u turin ama u yaraan aan qofkii dareenkiisa la dareemin marka dadkaana in wax loo qabto wa tu'inu dhal haaja qofka baahan baad wax la qabanaysaa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam ama akhraqa la yiraahday waxba aan qabsan karayn baahiyaa waxa kamida macruufka oo qofku sameeyay as-satr ala awraat al-muslimiin qofka markaas simbiraxda ee aan caadaystaha ahayn bulshada kamida wixii yara simbiraxa ka dhaca inaan ceebtiisa la faafin iclaamka la galinin laakiin loo naseexeeyo lana asturo waxa kamida waxyaabaha macruufka as-suruur ka farxinta ehelkaagaad ka farxinaysa ubadkaagaad ka farxinaysa asxaabtaad ka farxinaysa ummadaad ka farxinaysa ka wax ku weydiisanayaad ka farxinaysa sida uu nabigu inoogu sheegay calayhi salaatu wasalaam tudkhiluhu sururun tudkhiluhu ala muslim sadaqooyinka iyo macruufka waaweyn waxa ku jira inaad isku dadaasho dadka inaad ka farxiso oonad ka nixinin oonad dhibin oonad dacaydeynin macruufka waxa ka mid ah shafaacada waa ergada iyo waasitada uu qofkii wixii wanaagsan ee khayr ah cidii doonaysa oo markaas cidda ay ka doonayso uga ergeynayo rasuulkuna wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam ishfa'u tujaru wa yaqdi Allahu ala lisani nabiyhi ma sha ergey oo doorkiina qaat إلهي بأجر إذن سين دورة ومن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها قفك إرجونا أكسنجل يا أبال كيسو لا يبو إلهي نبلغ قاضي سبحانه وتعالى وحكم إذا دعاء دي أنا ذو حبقة بنكرين عدي وناك سمين إيسا موضع السمين إيسا أدى ذا ليسا أنت أين الشيخني بحنايا أما أديك كوس سمين إن هذا دعيس حلال كواوين واجبات كعام كأنه وصارن قفك قبنايا أما أديك أبو وحكو تريا معروف عام يمد خاصة الصمينة إن ذو الدعيس هذانا ذو حذه لكرين من صنع إليكم معروفا فكافيوه فإن لم تجدوا ما تكافيونه فادعوا له على معنى الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قفك وناقدين سمايا قفك أرمها عام كا وحكا قبتا وناق بكو سمايا حلب كافرت كخاص كاذيك وحكوكو قبتا إنوا كسي هريا qofka wanaag idin sameeya waxba u abaal gudab waxa ugu abaal gudaan hadaa weydana u duceey ducadaas abaal gudu noqonaysa
intaa marka la sii dhaafo waxa ka mid noqonaya macruufka ittiqaa'u sharrika min annaas inaad dadka wanaagga samaynaya iyo bulshada dhibkaaga ka haysato haddaad noqotay qof aanad ahayn qof iijaabiyahoo dadka wax ula diyaaro wanaagsan inuu siiyo qof salbiya ha noqonin oo dhib ummadda ula yeelan waayo qofka muuminka ay dhib low maaha waa dheeflow wax wanaagsan buu ummadda mar walba ula diyaar yahay inuu ku caawiyo waxaa jira haddaba fawaa'id calaa camali alkhayr wixii wanaagsana la sameeyo faa'iidooyin laga helo kuwaasi hadday ahaan macruufka laynaga doonayo noocyadiisa macruufka aad samayso faa'iidooyin baa laga helaa waxa ugu horeysa waxaad helaysaa sifaat almuttaqiin dadku ilaahay qur-aanka ku ammaanay alla yaqaankii ambiyadu ay u horeyso tilmaamahoodii baad ku sifoobaysa ulaa'ika yusaaricuuna fi lkhayraati wahum lahaa saabiquun ambiyadiisuu ilaahay ammaanay waxay ahaan dad khayrka u dheereeya u tartama oo marka khayrka lala soo qaaday u horreyn jireen waxaad ku helaysaa raalli noqoshaha ilaahay subxaana wa tacaala waxyaabuu ilaahay kaaga raalli noqonaya waxaa ka mid ah arrimahan macruufka ah ee aad ka howlgelayso ee aada u diyaarteed wakhtigaaga qayb samaynayso nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam axabu nnaasi ila allahi anfacuhum dadkao dhan ilaahay wuxuu ugu jeceliyay jacaylka ilaahayna waxaynu ordayno qofka ummadda ugu nafci badan ee aan dhib u haynina laakiin dheef ummadda ula taagan waxaad ku heli karaysaa faa'iidooyinka ka mid ah qofka had iyo jeer macruuf ka sameeya yaksib quluuba alcibaad yaktasib quluuba alcibaad wuxuu kasbanayaa qofku dadka addoomahooda waa waxyaabaha la isku jeclaado xadiidkii saxiixa nebigu wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam tahaadu taxaabu hadyadda isa siiya waa idin isjeclaan doontaa oo dadku markay culays isku noqdaan baryada iyo baahida isku badiyaan way isku karaahaystaan laakiin qofkaad wax siiseed ku celiso inta aynu soo sheegnay mid ka mid a waa kugu jeclaanayaa waxaanaynu doonaynaa dadka quluubtoodu inay isku wada xidhanto a isjeclaato bulshada kala firdhi lahayd ee kala faafi lahayd waxyaabaha ay isugu soo ururayaan dadka isku deegaanka dadka isku ehelka dadka isku asxaabta ah ayuu ka mid yahay macruufka noocan ahee la samaynayo waa asaas buu u yahay fii dawaami lumam ummaduhu inay sii jiraan oo aan laga adkaanin oo aanay kala baahin waxyaabaha asaaska u ah ee xabagta isu haysa macruufkana ka mid a qofku wuxuu ku xisaabtamayaa daciifka ahi horta dadkan agtaada joogeed la nooshahay ee kaa adduun badan ee kaa awood badan maxaad ka faa'iidaa waxaasaad ku qabtaa waxaasaad markuu waxaa tiriyo xisaabtamo wuu jeclaanaya wuu ducaynaya wuu ka agdhowaanaya wuu dugsanaya iyagii xoolahoodiiba wuu difaacaya hadduu waxba ka waayana dee waa kaa waxba laga yaabaa inuu cadowga ka raaco asxaabta ayaa tusaale wanaagsan inoo ah sababaha ay kaga horu mareen muddo gaaban ummadihii ka agdhowaa waxaa ka mid ahaa macruufkaasoo dhexdooda ku baahsanaa nebiguna uu ku tababaray calayhi salaatu wasalaam macruufkan inaynu samaynaa waa sababun liijaabati ducaa ducooyinkeenna inuu ilaahay aqbalo oo bedelkaynu u baahannahay waxaynu ku helaynaa macruufkan inaynu samayno qur-aanka ilaahay wuxuu ku xusay nebi ambiyada ka mid oona xaaskiisu dhali jirin ilaahay buu baryo awlaad buu barye wanaagsan ooridiisayna ilaahay wuu u diyaariyey iyadoon dhaliba jirin waladna way dhashay ilaahay uu baryay subxaana wa tacaala nebigaasi kuma ahaa nebiyullaahi zakariya calayhi salaam wazakariya id naadaa rabbah rabbi laa tadarnii fardan wa anta khayru lwaarihiin ilaahayow ubad la-aan baan taaganahay keliha igaga tegine walad wanaagsan isiibu ducadii buu ilaahay u aqbalaa waxau uhi fastajabnaa lahu wawahabnaa lahu yaxya wa aslaxnaa lahu zawja inanka yaxye la odhan jiray baanu siinaan u hibaynay ka horna ooridii baa loo hagaajiyey ooridii baa ilaahay dib u habayni ku sameeyey macruufku sameeyey daraaddii kolkaasay ilmaha u qaaday iyo isagoo isna da-diisu ay weyntay iyana ay gaboodoone dhaliba jirinba saasay iyaa yaxye ku dhashay culimmadu waxay leeyihiin waxyaabaha ilaahay ugu aqbalay bay ka mid ahayd kafaalaqaadkii uu xil qaaday ee uu soo koriyey ee uu soo barbaariyey inantii maryam wa kafalaha zakariya nebi zakariya inantaa maryam xil qaadoo kolkaasaa ilaahayna uu ugu jawaabay inuu yaxye u hibeeyo qofkaan ubad lahayn qofka ubadku ka sii noqday waxyaabaha ilaahay uu ugu maarayn kara arrimihiisay ka mid tahay ama ducadiisa lagu aqbali karo macruufkan inuu sameeyo waxaa ka mid a shisheeyahaynu kaga maarmaynaa ummado shisheeya laga yaabaa dadku marka ay duruufi ku dhacdo inay wax siiyaan iyagoo ujeeddooyin kale leh
kadibna ay isjeclaysiiyaan kadibna sidaa lagaga yaabo inay ama diinta kaga baxaan ama qalooc uu ku yimaado marka dadka muslimiinta inay noqdaan dad iyagu takaaful leh oo isxil qaadaya oo gacantii cid kale ay u filan lahayd iyagu gaabkaa buuxinaya macruufka faa'iidooyinka laga helaa way badan yihiin kuwaasaa ka mid a marka waxaynu baraarujin lahay howlaha inoo yaala ee caamka ayaan la fudaydsanin oon la isku halaynin ama culimada qura lagu halaynin ama madaxda ama acyaanta laakiin dadweynuhu kaalintooda ha qaataan allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaaca وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أصلح العباد والبلاد اللهم أصلح العباد والبلاد اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه حرر النفس ولا تحيا هباء